waxaan ahay nurse joogtay ka shaqeynaysa experience waxaan u leeyahay nursing 5 sano waxaan u shaqeynayay dad kala duwan oo xaalad caafimaad alxamdulillah xoog baan ugu soo shaqeeyay muddo badan laakiin imika waxaan u shaqeynaa beeshinadii hore beeshina ka duwan taa xaaladeedu taas ay tahay si wadoonahay xanuunkan COVID-19 ee adduunka ka qaylisiyay kala duwanaanshaha xaaladii hore beeshinadan u shaqeynayay xaaladan imika wallahi xoog farq weyn baa u dhaxeeya iskuma dhaw iskuma mid aha waayo waxaan ugu shaqeynay bilaamaas dareeso man xidhanay iyo galaafka laakiin imika waxaan noo dheer muddo badan saacado badan inaan xidhnaano face mask iyo qalabooda qufulan taasoo kuleelkeedii wadata dhibteedii wadata styles waxaan xidhnaa 9 saacadood anaga oo xidhan qalabkaas oo sooman waxaan waxa u sameeynaa dadqabka dadka iyaga u badbaadino waayo hadaan anagu gacanta ka laabano cid kale oo idin shaqeynaysa ma jirto xaaladuna inta way naga sii adkaanaysa marka waxaan idin fari lahaa bulshooyinka daawanaysa inta ay maqlaysa inay nala shaqeeyaan xaaladooda caafimaad talooyinka aan bixinano faraxalkii maaskii kala fogaanshihii intii bay inay sameeyaan saan anaguna wax idinku qabanay insha Allah xagga familiga at least waxaan 3 jeer baan ku meedhanaa way dadka hadana aaminaadii baa ka baxday maadaama aad ka shaqaysay coronaviruskii waa la iska kaylaanaya waa la iska ka tukooraya waa laga durkaya marka caqabado badan way jiraan laakiin waxaan kaga baxnaa idinku nala shaqeeyo anagu